ismaqal iyo daawasho wanaagsan waa markaani qodobadii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya iyo caalam qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Khayre oo digay ciidanka Ahlu Sunna ee la qarameeyay Axmed Madoobe oo albaabada ka xirtay musharaxiintii la tartamaysay dib u dhac ku yimid markii saddexaad shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo haweeney u magacaabay xil sare xildhibaanada Jubbaland oo cusub degdeg ah u soo diray dowladda Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale aad ku daawan doontaan hadduu ay bid markaani u diyaar garooba ayagoo intaasi ka faahfaahsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlay warbaahinta ayaa digniin adag u diray ciidamada Ahlu Sunna wal Jameeca gaar ahaan kuwii dhawaan la qarameeyay Khayre oo khudbad u jeediyay ciidamadaasi oo tababar loo soo xiray ayaa sheegay in la aqbali doonin ciidan ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Ahlu Sunna wal Jameeca sidoo kale wuxuu ballan u qaaday in dowladda ay muhiim gaar ah siinayso hagaajinta iyo xuquuqda dhammaan ciidamadii Ahlu Sunna ee lagu biiriyay kuwa xoogga dalka dowladda waxaa waajib ku ah in aad ka heshaan xuquuqdiina saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee deegaanada Galmudug waxay ku amran yihiin inay ciidamada faraan waajibaadkooda idinku waxaad ka soo wareegteen Ahlu Sunna laakiin laga bilaabo saacadani waxaa idinla xisaabtami doonaa mana aqbalayno in aad ka wada tirsanaataan meesha aad ka tirsanaan jirteen iyo dowladda federaalka ayuu yiri ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ugu dambeyn wuxuu tilmaamay in dhismaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed aan loo mari karin qabiil iyo jabhad isla markaana laga soo gudbay dhibaatooyinkaasi hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo dhowaan dowladda dhexe iyo Ahlu Sunna wal Jameeca ay xal ka gaareen khilaafka ka dhashay heshiiskii ay horay uga dareen gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug taliyaha ciidamada ilaalada madaxtooyada maamulka Jubbaland Mahad Xasan Cabdi oo loo yaqaano Yaxbul ayaa amar ku bixiyay in aysan madaxtooyada Kismaayo soo gali karin ballan la'aan dhammaan madaxweynayaashii la tartamay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe musharaxiintani oo saaxiib dhow la ah madaxweyne Axmed Madoobe sida oo kalena qaarkood ah dad maqaar saar ah oo la tartamay Axmed Madoobe ayaa loo diiday in ay soo galaan madaxtooyada Kismaayo sida ay noo sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada magaalada Kismaayo dadka loo diiday in ay galaan madaxtooyada Kismaayo waxaa ku jira musharaxiin aan ka qayb galin doorashada kuwaasoo iscasilay ka hor doorashada Kismaayo ama inta aan hoolka doorashada la tagin balse isdiiwaan galiyay caasimadda online ayaa ogaatay in mas'uuliyiinta loo diiday galitaanka madaxtooyada Jubbaland in ay ka mid yihiin Maxamed Cumar Geedi musharax Rabbi iyo haweeneydii la tartamtay Axmed Madoobe Canab Maxamed Daahir iyo mas'uuliyiin kale lama oga sababta ka dambeysay arintani balse waxaa la aaminsan yahay in uu amarkani ka soo baxay Axmed Madoobe isla markaana uu doonayo in uu ku cadaadiyo siyaasiyiintaasi oo doonaya in ay helaan xilal kale maadaama ay ka qayb qaateen dhismaha iyo doorashadii Jubbaland ee ugu dambeysay iyadoo lagu dhagan yahay Axmed Madoobe mas'uuliyiintani oo aan qaarkood la xiriirnay ayaa noo sheegay in aysan doonin in arintani ay ka hadlaan balse ay tahay wax jira waxayse ku micneeyeen inay tahay amar taliska ka soo baxay oo aanan la gaarsiin Axmed Madoobe ayna qabaan inuu dhamaado xildhibaanada baarlamaanka labada dowlad goboleed ee Jubbaland oo dhawaan madaxweynaha u doortay Axmed Madoobe ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay xayiraadda ka qaadaan diyaaradaha garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo kulan ay maanta yeesheen xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa waxay xildhibaanada ku sheegeen in dadka rayidka ay dhibaato ka soo gaartay xayiraadda diyaaradaha Kismaayo ayaa dowladda federaalka ka dalbaday in ay xayiraadda ka qaado duulimaadka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo xildhibaanada oo si qoto dheer uga hadlay dhibaatada ay dadka rayidka ah ka soo gaartay xayiraadda diyaaradaha ee Kismaayo ayaa dowladda federaalka ka dalbaday in ay xayiraadda ka qaado duulimaadka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ayaa lagu yiri war laga soo saaray kulanka xildhibaanada ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu daran ay ka soo gaartay xayiraadda ay gaareen dadka rayidka ah sida dadka xanuunsan oo ay adag tahay in dhaqso lagu gaarsiiyo goobaha isbitaalada maadaama xayiraad la saaray diyaaradihii tooska ahaa sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa afduubka ku tilmaamay xarigii ciidanka booliska Soomaaliya ay magaalada Muqdisho jimcihii la soo dhaafay uga geysteen wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo wajahaya eedeymo loo haysto ugu dambeyn xildhibaanada ayaa dowladda ka dalbadeen in ay xoriyadiisa la siiyo wasiirka
waxaa mar kale uu dib u dhac ku yimid shirkii dib u heshiisiinta galmudug oo la filayey in maanta uu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud. xubno ka mid ah guddiga qabanqaabada ayaa warbaahinta u sheegay in arrimo farsamo darteed uu u baaqday shirkaasi. sidoo kale waxay xubnihii sheegeen in ay ku rajo wen yihiin in shirka uu furmo maalinta beri ah oo ku beegan 5 bisha 9aad 2019. dhuusamareeb waxaa ku sugan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada. ra-iisul wasaaraha ayaa daahfuri doona shirweynaha dib u heshiisiinta maamulka galmudug oo in muddo ah diyaarintiisu ay waday xukuumadda Soomaaliya. dhanka kale ammaanka ayaa la adkeeyey iyadoo ay si weyn u xaqiijiyeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee la geeyey halkaasi. waa markii saddexaad uu dib u dhac ku imaanayo shirkani oo ay weli tabasho ka qabto beesha Saleebaan oo degta magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa markii ugu horreysay haweeney u magacaabay in ay xil sare ka qabato wasaaraddiisa. wasiirka ayaa Jihaan Cabdullaahi Xasan u magacaabay inay si ku meel gaar ah u sii hayso xilka agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga. digreetada oo taariikhdeedu ku xusan tahay 1 bisha 9aad 2019 ayaa waxaa laga dalbaday hay-adaha dowladda in ay la shaqeeyaan si hayaha agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk Soomaaliya Jihaan Cabdullaahi Xasan. waxaan maanta oo taariikhdu tahay 1 bisha 9aad si ku meel gaar ah xilka agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga ugu magacaabnay Marwe Jihaan Cabdullaahi Xasan, taas oo bedelaysa agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Warsame Maxamuud Xasan oo si ku meel gaar ah u sii hayay xilkaasi, ayaa lagu yiri qoraalkani.